Assalaamu calaykum. Waxaan halkan idinkugula wadaagayaa xog kooban oo aan ku salayn doono guud ahaanba dalka Shiinaha. Shiinaha waa wadanka ugu dadka badan dunida, wuxuuna ku yaalaa qaaradda Bariga Aasiya. Qariirada wadanka Shiinaha waxay u samaysan tahay sida dhul baaxad weyn, isla markaasina kayn ah. 2014 tiro-koob la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in dadka Shiinaha ay yihiin 1.35 bilyan oo qof, waana tirada ugu badan cadadka dunida inta la ogyahay. Shiinuhu waxa uu leeyahay luqadda China, isla markaasina aanan lahayn wax alfabeeta ah, laakiinse waa luqad ka kooban qaab farshaxanaysan iyo qaab sawireed. 87.4% dadka reer Shiinaha wax diina ma haystaan, halka 6% ay aaminsan yihiin diinta Buddhism-ka. Wadanka Shiinaha waa wadanka ugu dhulka weyn qaaradda Aasiya, waana wadanka saddexaad ee ugu dhulka baaxadda weyn dunida. Ajaanibta wadanka ku nool lama aqoonsan karo marka loo eego dadka wadanka u dhashay. Saynisyahanada caalamka ayaa sheegay 5 qof oo meel istaagtaba in 4 ka mid ah ay yihiin dad Shiineys ah. Shiinaha waxaa ka mamnuuca in dumarka ay dhalaan wax ka badan 2 cunug, taasoo lagala dagaalamayo tirada dadka oo xadkeeda sii dhaafaysa. Dowladda ayaa dhaqaatiirta isbitaalada ku wargelisay in haweenka ay ka umulinayaan kaliya loo ogol yahay 1 cunug, haddiise ay si dhuumasho ku dhasho wax ka badan 1 cunug, isla markaasi ay mudanayso ganaax iyo sidoo kale xukun. Shiinaha waxaa sidoo kale ka mamnuuca in dadka wadanka u dhashay iyo guud ahaanba ay isticmaalaan aaladda internetka sida YouTube, Facebook iyo Twitter. Dowladda ayaa go'aankaas soo saartay, waxaana loo mamnuucay in dadka ay ku soo gudbinayaan fikrado dowladda ludki ah.